الله وبركاته. مقعي ومحمد أحمد حاشي كان ترسم بحث عافيماتك دمان برشلونة الصومالية قيبة كلا دوما محرمين اللي هو ذاقنا كانت دون السافية اللي يقان كورونا فيروس عذر كان وحده يقان overview sidoo kale waxa la yaqaan transmission causes iyo sign inta uu leeyahay cudurkan hadii aan hormaro oo fiican introduction kiisa ma ahan cudur hadda bilowday waa cudur hore u soo jiray waxa la soo gaaday cudurkan inuu jiro 1960kii oo ka jiray adduunka laakiin sida uu maanta yahay ma uu badnayn waxa jira cudur kale oo sabay oo yiraahdo MERS iyo SARS MERS oo ah waxa loo yaqaan mild acute severe respiratory oo ah cudur ku dhacay neef mareenka sidoo kale waxa jira cudur yiraahdo SARS oo ka dilaacay Sacuudiga 2012 ilaa sidoo kale safir waxa laga soo gaaray waa cudur ku dhacay respiratory waxa loo yaqaan waa severe acute respiratory syndrome sidoo kale cudurkan wuxuu leeyahay transmission oo waa cudur ka yimaada animalska inuu gudbaayo humanka waxa ku dhaca badanaa waxa loo yaqaan waxa laga helaa waxa loo yaqaan ratkiska iyo pigiska ama doofaarka iyo waxa loo yaqaan fiidmeerta sidoo kabaliyo kale iyo bisadu kale walaas kale ku soo gudbaa hadda wuxuu cudurkan ku soo baxay oo ku soo bilowday wadanka China 2019 bishii December oo hadda ku soo bilowday kiiskii loo yaqaan novel coronavirus oo loo bixiyay COVID-19 cudurkan wuxuu marayaa xaalad halis ah adduunka dhan waa cudur ku kala gaaray hadda meel oo كان له هذه مجرته. أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جود أهان برشة الصومالية وحرمنا إلى كواعي جنينه. أذكر كان ولا عبدا كل اللي جود أهان عالمك. جارهان ودمضان يوروب. وحرمنا برشة الصومالية إن وجودك منه لواتوين كوليها. أذكر كان والله ما حبعي عملوا ما قعد على COVID-19 أما كورونا نوفل فيروس. coronavirus waa infection oo virus sababayo kaas oo si deeply u faafayo ama baasan uu ku faafayo marka waxa rabaa bulshada Soomaaliyeed marka hore inaan tusiyo calaamadaha uu ku faafi karo cudurkan calaamadaha lagu garan karo waxa kamid ah qofka inuu qufacayo zaid qufaciisana uu qalalan yahay qofka inuu yaani daal dareemayo asoonan soconaynin qofka inuu yaani qandho heavy qabanayso ama high fever waxa loo yaqaan qabanayso iyo calaamada intaas si dheer jiro sidoo kale waxa jiro qaab uu gudbayo cudurkan ama way of transmission waxa la dhahayo wax walba uu gudbayo oo ama in generally waxa lagu qeexaa saddex inuu ku gudbo ama inuu noqdo si toos ah ama inuu noqdo si aan toos ahayn ama inuu zoonotic xayawaan uu ku soo gudbiyo marka si toos marka la leeyahay maxaa waay qofkan inuu ku qufaco oo maxay hindisiisa uu droplet ku soo gaarsiiyo droplet kaas oo qofka si toos u gaaraya kaas waxa lagu magacaabaa direct transmission lagu magacaabaa si toos u gudba si aan toos ahayn maxaa kamid ah qofkan inuu aqab u isticmaalay qof infection ka qabo inuu aqabkaas u taabto then cudurkiisaas uu ku gaaro marka labadaas shay ugu muhiimsan direct indirect laakiin in generally cudurkan wuxuu ka imaaday xayawaan sida fiidmeerada iyo kibiliga uu ka imaaday kaasoo ibn aadam ku soo gudbiyay soo marka labadaas way ayaa ugu muhiimsan oo ku faafi karaa qofka inuu yaani taajin ku sameeyso ama inuu ku soo qufaco marka waxa la dhahaa si ay ugu badbaado inaa u jirto ilaa iyo 6 feet wax la mid ah saasa kaga badbaadi kartaa qaab kala jiro prevention ka iyo loo hadli doono asxaabteeda joogto ayaga prevention wax badan ka taaban doono laakiin hadda wayga ugu muhiimsan waa person to person contact hadda waxa la sameeyo waxa loo yaqaan community spread waxa la dhahayo qofka cudurkan uu qabo meeshu ka keenay ma ogo wuxuu arkayaa asoo cudurka infected la meeshu ka keenay ma ogo qofka uu ka qaaday ma ogo marka waxa looga magac daray community spread والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أمد الصوماليات وحرمنا إنك وعي قلنا عذر كان كورونا فيروس ولا له يهري أي وحكسوا علينا عذر كان هيستوري قولها على مذيه يهاكو قلبه. وقدام بين أنا وحربا إن كهالله prevention and management سيد الله هرتق عذر كان كورونا فيروس COVID-19 لو يقالنا. سان أقولنا هاي وحربا إن كسو كوبه سيد الله هرتق صدح قضب. كو نفط هذا إلالي لبو دتك عطيعش إلالي صدح يبرشد هذا انتاس وين على لسا نمبر 1 نفط هذا إلالي محك وضع نفط هذا إلالي وحك وضع قعمة هذا وحاكود غضا صابون أما وحا استعماشا وحيالها الكحول حدي أولين لبداسنا وحا استعماشا
dambaska kadibna biyo ku dhaqo gacmahada. waa number 1. haddii gacmahadu ay wasaqaysan yihiin fadlan ha ku taabanin indhahaaga, sanka iyo afka. waa meelaha la iskugu gudbiyo cudurkan COVID-19 la magac baxay. 3 1 mitir ka fogow qofka qufacaya ama hindhisaya. number 2 dadka aad jeceshahay ilaali. waxaan ka wadaa dadka aad jeceshahay ilaali waxaan ka wadaa haddii cudurkan COVID-19 la magac baxay haddii uu kugu dhaco ilaahay kuma ridee waxaad samaysaa tiish isticmaal haddii aad qufacaysid ama hindhishiis kadibna iska tuur. marka labaad waxaa weeye bulshadaada ilaali. bulshada ilaali waxaan ka wadaa haddii aad qufacaysid ama hindhisaysid ama qandhasayd ay ku hayso ama neefta ay ku dhibayso fadlan gurigaaga joog kadibna la xiriir goobaha caafimaadka ee kugu dhow. cudurkan kaliya waxaa lagu xakameyn karaa qofka inuu gurigiisa joogo. 2 nadaafadda in lagu dadaalo. waxaan doonaynaa saa ognahay cudurkan coronavirus COVID-19 ka ah wuxuu u nugul yahay dadka waaweyn. marka 30 second kastaba ama 30 ilbiriqsi kastaba in la sameeyo gacmaha in la dhaqdo. tan labaad in la wacyigeliyo bulshada, yacni sida anagu wacyigelino bulshada dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta wax baratay, yacni ay wacyigeliyaan dadka walaalahooda ah si cudurkan yacni aan u sameyno prevention. haddaan usoo laabto yacni dhankan managementiga ah. management markaan leenahay cudurkan viruska ama viral infection oo dhan waxa daawa ma lahan, laakiinse waxaan rabnaa wuxuu leeyahay supportive wax la yiraahdo in la saacido. waxaa ka mid ah in qofka haddii qandha hayso qandhadaas laga jebiyo. haddii uu qofkan fluids ka baxay fluidskii la soo celiyo. waa managementiga waaye. waxaan ognahay virus oo dhan ma lahan daawo, laakiinse wuxuu leeyahay supportive in qofka la saacido. nadaafadda ha lagu dadaalo. dadkana guryahooda ha joogaan. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam an-nadaafatu nisful iimaan. nadaafaddu waa iimaanka barkeed. marka nadaafadda aan ku dadaalno insha Allah ta'ala ilaahay wadankana Soomaaliyeed cudurkan coronavirus ka ah kuma baahiyo. case baa la sheegay insha Allah waxaan rajayn doonaa waxaan ka midnahay wadamada yacni oo ugu nugul ilaahay nooma keeno. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa habka gacmaha dhaqista gacmo-meeritaanka maadaama uu jiro COVID-19 coronavirus. marka waxaan bilaabi doonaa horta adiga oo adeegsanaya gacmahaaga ku dhaqayo saabuun ama dambas ama shaambo adiga oo adeegsanayo. marka waxaan bilaabi doonaa gacmaha dhaqida steepkeeda koowaad. waa inaad gacmahaaga qoysaa. steepka labaad waa inaad ku dhaqdaa shaambo aad gacmaha isku celcelisaa. steepka saddexaad waa inaad faraha isdhexgelisaa, waayo sababtay faraha ku dhaqmi karaan wasaqdii ku jirtay iyo wixii ku jira ka bixi karaan. 30 minit kasta waa inaad gacmahaaga dhaqdaa, waayo waxaa saaran 10 kilo sika saaran hagaada dhaqan Soomaa. Biyaha waxaa ku jiro waxaa galaya wasaq. waa inaad ka mirtaa aad ku qastaa calaacasha ama baalmada si aad ugu baxdo wasaqdii ku jirtay cidiyaha, waayo wasaqay keensanaysaa cidiyaha. steepka shanaad waa inaad farta suulka gooni oo dhaqdaa, waayo iskuma dhaqmayaan faraha iyo suulka si kalaba iskuma dhaqmayaan. steepka lixaad waa inaad raacsiisaa biyo badan. gacmihii waa dhaqay, waa meere, waa qalajiyey. waa inuu adeegsadaa waxyaabo qalajinaya ha noqdaano kiishka. wixii aad haysataa ayaad isticmaali kartaa kiishka iyo
istiraashooyinka kaleenta ah oo alkalada. Markaan rabo inaan tubada xiro waxaan u adeegsanayaa tiish waayo gacmahayga ma rabo inay mar labada igu wasaqoobaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.